ku soo dhawaada jiraalka maanta waa barnaamij aynu ugu magac daray hardanka taxanaha bariga dhexe. Waxa aynu soo qaadanaynaa hordhac si aynu xog ugala soo baxno una fahanno xaqiiqooyinka aynu ku daah qaadi doono isla qodobadan. Ciidanka Azerbaijan iyo Iran ayaa isniintii la soo dhaafay 25 Oktoobar waxay wada sameeyeen dolatus military jir ah taasoo ka dhigan in ay wadaagayaan khibradooda iyo tababarada dagaal. Waa maxay waxa ku jira tani? ficilkani waxa uu muujinayaa arrin cajiib ah aynuna ogaan doono. ficilkani wuxuu muujinayaa ama ina tusayaa waa in ciidanka Azerbaijan oo tababaro Turkigu oo cadow istiraatiiji ah u arka Iran. Intaa kaliya maahe Azerbaijan waxay khad muhiim ah oo saadka ay ka hesho u tahay Israa'iil oo xagga Iran looga arko cadow istiraatiiji ah iyana. Marka aynu aragna arrimahan ogaano waxa ayna barayaan in ay dunidan jirto hal wax oo la isku raaco heshiisna lagu noqdo taasi oo ah ama noqonaysa danaha uu dalka leeyahay dal kale. Haddii aad isweydiisay sidee Turkigu cadow istiraatiiji ah Iran ugu arkaa, isla su'aashan lafteeda ayaa udub dhexaad u ah tan. Sidoo kale isla qodobkani waxa uu ku daah qaadayaa sida dunidan loogu nool yahay waqtigan. Natiijadana waad ogaan doontaa. Natiijadana waa inaad ogaan doontid inayna jirin dalal ay midayso islaamnimo ama kuwa isla dhashay, balse xaqiiqadu waa inay dunidan hagaan waqtiga iyo danta maalinta taagan. Halka qodob dhig waa maxay danaha siyaasadeed ee dalalka mideeya. Si aad weydiinta u fahantid waxaan ku sharaxayaa oo aan ku siinayaa xaqiiqdan. Iran ayaa mar ahayd xulufada ugu weyn ee bariga dhexe uu ku leeyahay Mareykanku iyo dalalka joogitaanka ugu ballaaran ay ku lahaayeen ciidamada Mareykanku. Waxayna Washington u arkaysay Tehran ukunteeda qaaliga ah ee bariga dhexe dhex taala. Waqtigu waa 1941. Waqtigaa waxaa Iran la wareegay boqorkii la odhan jiray Maxamed Raasi Shah oo reer galbeedku ay ugu yeedhi jireen si fudud Shah. Muddadii uu boqorkaasi xilka hayay, dalka Iran wuxuu ahaa meesha xidhiidhka ugu wanaagsan ay la lahaayeen reer galbeedku, gaar ahaan Mareykanka oo dhaqaale iyo tamar badan ku bixiyay Iran sidii loo dhisi lahaa xulufadiisa bariga dhexe ee Iran. Weli ma isweydiisay daawade xaguu ka yimiday nukliyeerka Iran ama siduu ku soo bilowday? Xaqiiqdu waa inay Iiraaniyiintu soo bandhigeen qarniga dadaal aan nuuciisa hore loo arag oo ay ku dhiseen awoodda dhinaca difaaca ah. Balse dhibtu waa hubka nukliyeerka ee waqtigan lagu colaadinayo Iran in uu markii hore ahaa hadiyad ka timiday xagga Mareykanka waqtiga oo uu siiyey boqortooyadii Shaahi xilligaa talinayay, iyagoo siiyey warshad lagu dhiso hubka nukliyeerka oo ay weheliyaan macdanta uraniumka oo la naaxiyey, joogtayna wax ka badan waqtigaa Shaaha uu talinayay 90%. Tan oo ka dhignayd ama ahayd in ay xilligaa awood u lahayd Iran in ay soo saarto bambada nukliyeerka. Laakiin si dhaqso ah wax walba iyo ukuntii dahabiga ahayd ee Mareykanka ee bariga dhexe waxa ay noqotay Iran maanta ee ah cadowga koowaad ee Mareykanka. Sanadku waa 1979 waxaana ka bilaabmay waddanka Iran kacdoon kaasoo soo afjaray xukunkii boqorkii Shah oo xilligaa ka talinayay, waxaana bedeshay boqortooyadii maamulka waqtigan ee hoggaanka sare ahna qoyska reer Khomeini oo bedelay wejigii Iran. Balse maamuladii kala dambeeyay ee isbedelay ee Mareykanku Iran waxay u sideen fursad iyo cadaadis labadaba. Markii la soo gaaray waqtigii Obama, Iran waxay u ahayd fursad una heshay waqti ay ku hormariso awooddeeda nukliyeerka iyo gantaaladaba. Tanna waxa u sahlay ama u suuro geliyay inay dhacdo heshiiskii nukliyeerka ee waqtigii Obama talinayay ay la gaadheen Iran. Balse Trump oo Obama ka dambeeyay oo yimid ayaa cadaadiskii Iran dib ugu celiyay. Heshiiskii Obama waqtigaa la galayna ka baxay ee nukliyeerka ahaa. Laakiin isbedbedelada kala dambeeyay oo lagu daray marxaladda maanta taagan iyo wejiga dunidu ay leedahay, Mareykanku wuxuu weerari doonaa
Iiraan